قندوز xagee ku sugan tahay wiilkaygii adiga se dhibaatadan maxaad isugu geysanaysaa haddii aad sii cararto wiilkayga ma waxay kula tahay dhibaatada iyo rafaadka aad ku jirtid inaad ka baxayso waa maya gunduus xagee ku sugan tahay saacadan Dragos waxa uu ahaa nin haliyey oo geesiya ciidamadana hogaamiya gadaalihii dambe waxaa lii sheegay inuu mucaarad noqday kadibna buuraha dhankooda u galay gadaalihii dambe waxaan ogaannay inuu noqday bur cadweyn ciidamo isaga amarkiisa qaatana waa uu samaystay dadkana si dhuumaalaysi ayuu ku dili jiray cid uu dhaafi jirina haba yaraatee maysan jirin haddii la dhihi lahaa ninkaas isbahaysi ayuu leeyahay dowladaha turkishka cidna gacan saar lama laha cid uu amar ka qaata ma jirto hadafkiisu zaguud oo keliya maa wuxuu rabaa macallin deegaankayga inuu gacanta ku dhigo arrimaha toglas sideed ku ogaatay arrimaha toglas toglas gabdhihiisa daraagosa wuxuu isku dayay inuu dilo kadibna ciidankiina ka badbaadiyey haddana deegaankiina ayay joogaan wayna badqabaan oo hadda way nool yihiin miya iigey waxaan rabaa dadkaas inaan la kulmo maxaad sugaysaana mari toglas wuu dhintay siduu ku dhintay qofkaas aniga muhiim ayuu ii ahaa ciidamada daraagosa sunsi sidaas ayuuna ku dhintay wax kale uma aysan dilin wuxuu rabay sirta dragos inuu aniga ii soo gudbiyo balse hadda wax walba ay u dhammaadeen ma aysan dhammaan toglas intuusan dhiman ka hor gabdhiis ayuu katiinkan kala dardaarmay wuxuuna ku dhahay haddii aan dhinto katiinkan waxaad u geenaysaan tagfur gudaheeda waan furnay waxna waan ka weynay aniga ma fiirin karaa waxba igama muuqdaan balse waxaan hubaa katiinadan dhexdeeda inay caddeen ku jirto saaxiibkii wax kale looma dilin katiinkan darteeda ayaa loo dili waayo caddeen ayaa ku jirta wax walba igu qaadato katiinkan aniga waan furaya caddeen waan ka raadin doonaa balse waxaan rabaa agteeda inay taallo katiinadan sirta ku jirta waxaan hubaa inaysan sir kale ahayn ay tahay sirta dragos oo keliya waxaan kaloo hubaa dilka umuur qof kale inuusan ka dambaynin ee uu dragos oo keliya ka dambeeyo cabsida ugu badan dhankayga waxaan ka qabaa dragos i aamin aniga katiinadda markii aad kala furto sir walboo ku jirtan aad ogaato waa inaad noo soo sheegtaa welwalka faraha badan iska daa aniga marka hore waxaan u haystay dragos inuu aniga oo keliya cadow igu yahay balse maanta garab ayaan haystaa garabkaasna qof kale maaha waa mudana artur waxaadna u sheegaysaa inaan isbahaysi samaysanayno macsalaam
ciidamadii takfuur yaasiin fallaaraan iyaga ayaa wateen faraantigana waa faraantiga umuur milikshaag waxaan ku weydiinaya waxyaabo kale miyaad meesha ku aragtay maya markii baaritaan aan sameeyey intaanu keliyaan ka helay adigaana kuu keeno aan kula soo socodsiiyey aniga in goobta gundus uu ku sugnaa takfuur iyo umuur waxa ay leeyihiin sidee loogu helay